maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 27 ayaa waxay xukun dil toogasho ku fulisay Cabdi Xuseen Maxamuud Xasan Dhaforo oo horay u dilay darwal mooto bajaaj. dilka wadaha mooto bajaaj ayaa ka dhacay saldhigga degmada Luuq ee gobolka Gado, waxaana Cabdi Xuseen Maxamuud Xasan Dhaforo oo kamid ahaa ciidamada booliska degmada Luuq gacantana waxaa ku dhigay ciidamadaasi oo ku sugnaa saldhigga. xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 27 ayaa ku eedeysay Cabdi Xuseen Maxamuud Xasan Dhaforo inuu si bareer ah ugu dilay marxuum Sugow Gaarane Ciyow oo ahaa bajaaj leh 3 bishii 3 2021 aynu soo dhaafnay saldhigga degmada Luuq oo ka tirsan gobolka Gado. toogashada askariga dilka geystay ayaa ka dhacday fagaaraha barxadda toogashada Luuq Ganaane, waxaana ku sugnaa ehelada labada qoys iyo sidoo kale saraakiisha ciidamada qalabka sida. toogashada kadib gaashaanle Maxamed Cabdiqaadir Maxamed xeer ilaaliye ku-xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa warbaahinta la hadlay. taariikhdu markay ahayd 30 bishii shanaad 2021 abaarihii 9 subaxnimo waxay maxkamadda darajada koowaad ciidanka qalabka sida u fariisatay dacwo ciqaabeedka lagu haystay eedeysana Debla Bool Cabdi Xuseen Maxamuud Xasan 32 jir ah ina Cabdiye Cabdullaahi Xasan ku dhashay Luuq ka tirsan ciidanka daraawiisha degmada Balad Xaawad, kaasoo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay inuu si bareer ah oo la kac ah u dilay marxuum Sugow Gaarane Ciyow. taariikhdu markay ahayd 3 bishii 3 2021 falkaas oo ka dhacay degmada Luuq gobolka Gado, waxayna maxkamadda ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasti marxuum Sugow Gaarane Ciyow. taariikhdu markay ahayd 1 bishii 6 2021 wuxuu racfaan ka qaatay xukunsanuhu xukunkii maxkamadda darajada koowaad ciidanka qalabka sida. taariikhdu markay ahayd 17 bishii 8 2021 waxay maxkamadda sare ciidamada qalabka sida u fariisatay dacwo ciqaabeedka loo haystay gacan ku dhiigle Debla Bool Cabdi Xuseen Maxamuud Xasan, waxayna mar kale ku xukuntay dil toogasho ah. maanta oo ay taariikhdu tahay 10 bishii koowaad 2022 waxa lagu fuliyay xukunkii dilka ahaa.